qiso xanuun badan. qisadani waxay ku dhacday wiil. waxa uu igu yiri wiilkani waxaan ku jiray waqtigii qaangaarka ama shabaabnimada. waxaan aad u jeclaan jiray banaanka. waan necbanaan jiray in aan guriga joogo. balan ayay isku kay dhiibi jirtay. waxaan ku soo laaban jiray guriga waqti dambe. hooyaday aad ayay iigu qaylin jirtay. waana dhibsan jiray hadalkeeda. ayadana walwal iyo hurdo la'aan ayaa ku dhici jirtay. anigana waxaan iska ilaalin jiray in aan guriga ku soo laabto ilaa ay hurdo hooyo. waxa ay gaartay heer ay iska seexato, laakiin warqad ayay iigu qori jirtay oo iigu dhajin jirtay kushiinka hortiisa oo ay ku qoran tahay cuntada meesha ay ii taal iyo noocay tahay. waxaan saas ku socdaba oo habeenkiina iska wareegayo maalintiina iska hurdaaba. heer waxaan gaaray hooyaday inay warqadda iigu soo qorto dharka wasaqda ka ah ii soo bixi si aan kuugu dhaqo. wuxuu igu dhahay habeenkii dambe ayaan waqti hore guriga ku soo laabtay, mase waxaa ii degsan warqad aad in laygu baahan yahay ay ku qoran tahay, laakiin waqti aan ku sii akhriyo ma haysan oo hurdo ayaa i haysay. banaanka ayaan ka soo cesheeyey oo cunto uma baahnin. sariirta ayaan si toos ah u tagay aniga oo aan akhrinin waxa ku qornaa warqadda. hurdada ii haysay darteeda waxaan hurdaba subxii ayaa waxaa ii soo galay aabbahay oo oynaya. hurdadii ayuu iga kiciyey, misena waxa uu igu dhahay hooyadaa way dhimatay ee allah u naxariisto. ilaa laga duugayo waan oynayay oo waa aan ku dhegnaa, laakiin maxay taraysaa markay dhimatay kadib oohin. wuxuu igu dhahay waxaan ku soo laabtay guriga galabkii markii la duugay kadib. waxaan ku aruuray sariirtii murugo iyo naxdin iyo shalayto, laakiin si degdeg ah ayaa waxaan iigu soo dhacday warqaddii aan xalay ka seexday oo aan weli akhrinin hurdo darteeda. waxaan aaday dhanka iyo kushiinka, waan soo qabtay waanan akhriyey. waxaana ku qornaa hadal ka duwan kii hore oo ah hooyo guriga haddaad ku soo laabato iga kici, waayo waxaan dareemayaa xanuun si aad isbitaal iigu qaado. oohin iyo murugo aan xad lahayn maxay tarayaan mar uu waalidkii kaa tagay. waalidku waxay nagu leeyihiin ixsaan inta ay dhiman ka hor. ka fiirsada sida aad ula dhaqmayso.